عقاشة صادين توحقلت كورده هوينكا iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Arabsiya gobolka Gabiley ayaa maanta kulan ay ku yeesheen degmadaasi ku taageeray xukuumadda Siilaanya iyo waliba xisbiga Kulmiye waxayna hoosta ka xariiqeen in dhiig u shubeen xisbiga Kulmiye loona baahan yahay in xukuumaddu ay aqbasho rabitaankooda sidoo kale Cuqaashan ayaa tilmaamay in xukuumaddu ku dhisan tahay beelo iyo saami qaybsi waxayna kulankooda ku difaaceen xogayaha fulinta dawladda oo degmada Gabiley oo baryahan dambe qaar kamid ah shacabka reer Gabiley oo damac ka galay kursiga xogayaha fulinta dawladda oo Gabiley shirkan ujeedadiisu tahay in bal jawaabo kooban aanu ka bixino arrin baryahan dambe meediyaha la dhex warfinayay sida guud ahaan beeshan deegaankan Arabsiyo waxay ka mid tahay beelaha ka qatan guud ahaanba maamulka madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo laakiin waxa keentay in maanta halkan ay Cuqaasha iyo beesha odayaasheedii aqoonyahankeed isku yimaadaan xogayaha dawladda hoose oo aan anagu sida caadiyan u haysanay inuu ka mid yahay shaqaalaha dawladda guud ahaan oo ka tirsan inuu yahay aanu aaminsanahay inuu yahay shaqaale ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha oo marka uu maamulku sida dabiiciga ee hay'adda dawladnimo u shaqeynayo aan san dhaqanka iyo curfiga iminka inoo noqotay aanu ahayn aan bal la tirsan oo shaqaale meesha la doono loo bedelo oo meesha la doono lagu qoro waxaan jiray ayaa haddana iminka waxa uu noqday boss ama reer loo tiriyo ama la siyaasadeeyo oo siyaasad loo tiriyo dadka waxaanu aragnay dadkii aan ku dhex jirnaan lahayn meel wada mara maskaxdiina isku keena muruqiina isku keena oo falsafad iyo aqoon iyo weerarna tusnay in la ilaaho meesha halkaas banaane halka tago bal warqadaada CV-ga u gudbi waxa halka ka sii yaabnay wasaaradda waxay tiri wasiirkaaga beesha soo maray dadna wixii nidaamkii dawladdu lahayd hadii laga beesheegana waxa la dawladay ninka xilka ay niyahay reerna maaha xil baa saaran cidda u joojin maayo u helay laakiin qofku hadduu propaganda suuqa ka socdo iyo dad ujeeda kala leh iyo wax iska miidi oo laga boqdo ay abuurato dawladda ciiday hawlaheega si cadaalad ah u ilaalmayso ninka siyaasiga waa noqonay wuxuu doonay inuu sameeyo laakiin ninka jooga imika ninka xogayihii waa meeshii administration-ka maamulka dhaqaaqay markuu isaga naydhaa warday ninka community wax walba ka sheekaysanay kaalayo reerbaalay waxba ay haystay igala qayb gala waxaanu leenahay ninkaas aqoon meesha ku soo hayay way arbigu ku soo hayay bulshada buu raalin galiyay yaa reerana loo dhageysani siyaasad loo dhageysan ninka maamulkiisa gacan ku siiya anaguna waanu garab taaganahay daanu beeshino aqoonyahanahay iyo hadaan dadkii il dariska ahaa iyo hadaan u raadi kala nahay lama baran shirka loo qabay si jaayo ama aan kala lama baran waxa weeyaan dawladii ku horeysay dawladda waxyaabo badan oo agaasimayaal ama xisaabiyo guud ama wax badan waxa weeyaan dawladdan Siilaanyo xubinta kaliya maanta laga joogtaa dawladdaasi waxa loo oran waa ka raaliga yar ee la isku haystay ku hadlayna caawa waxa weeye hadaba waxaanu leenahay annagu hadii beelnimo lagu riixayana dee beeshan ballaaran baa cumar waxa qofkaas ka jira oo beelnimo dee lagu riixi karo hadii aqoontiisa amba shaqadiisa ay dawladdu ku geerayso dawladihii hore ixtiraam badan baa ku lahaan jiray waxa weeye dadku markay aqoon jirto de kulli markay in la horumariyo la doonayo cidii wax qabanaysa ee waxa aqoon u leh ee dhaqaajin karaysa ayaa kulli loo diranaya waxaanu lahaan jirnay siday ragiga horeeyay odayaashiiba sheegeen waxaanu lahayn ilaa 7-8 DG baanu lahayn waxaanu lahayn xisaabiyo guud wala naga qadri jiray intii dawlad soo martay Soomaaliland haday askari tahay iyo haday shaqaale tahay iyo haday madax tahay iyo haday dawladda xataa ay dadku maanta waxaanay for example arrin aan habboonayn in sidan looga hadlo
laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa geelu iskeeda ma kulli waxaan halkan u imid dawladda Soomaaliya waxaan ku lahayn badiyo saamiyaal badan baan ku hayn maanta dawladda kulmiye waxaan ku leenahay xoghayaha dawladda hoose ee Gabiley ayaan ku leenahay oo halkan noogu sareeyay taa kulli anaga wax tirsanayno talow xagee la idin ka maray ama maxaa la idin soo haleynaya ama maxaa ma idin ka hadli waaye ama ma la idin waaye ama seemaas saami baan meesha idin ooli annagoo isdahayn haddana waxaan oranay xoogayihii oo lagu haysto reer ahaan lagu haysto ama tiyoon kolka horeba wax tabanayno oo leenahay waxba kuma lihidina dawladda agaasime ma lihidina wasiirna hadalkiisa daa xildhibaan kuma xildhibaan baarlamaanka ama lihidina taynaan kolka horeba waxa la waxaan leenahay aan jirin oo naan waxba hatta xisbiga laftiisa aan ku lahayn waxba oo kolka horeba sababtamayno xabadii kaliya hayday meesha noogu jirtay haddii mikrofon inta loo qaatay la yiri wallahi xabadaana uma qalmaan aad iyo aad baan uga xunaa sababtoo ah anagu ma nihin dad la yareysto baa mar hadaan nahay odayaal tafaan u leenahay dhalinyaro tafa oo leeyaan u leenahay islaam hooyooyin oo laga soo hoysan baan leenahay waxa weeye waa laga soo hoysan waay xukuumadda waan u ololeynay maanta waxaanu maanta halkan isku nimideen soo kiciyay waxyaalaha aanu dee u adkaysan weynay odayaashii hore si ay ka dhawaajiyeen dawladdan maanta kulmiye dawladihii hore desaami ballaaran baan ku lahayn reer ahaan haddaan nahay beesha baha cumar mugtahay dawladdan kulmiye dee kulley dhalinyar baaban iska tirsanayna wax saamiye kuma lihidin baanu lahay hadda caawa waxaana soo kiciyey meeshan waxaa ka joogay inan yaroo xoghayoon u haysanay kolka hore in yaroo shaqaale ay dawladdu soo diratay oo shaqadeeda iyadoo saa idmatay oo booskii niman salaadiina oo beela hogaaminaya niman wasiira ah oo beela hogaaminaya niman xildhibaana ah oo beela hogaaminaya dhammaantood ay booskii yaraayo inankaasi joogay tartan ay leeyihiin maanta aniga ayuu reerkaygan ku wanaagsan yahay ee inankan iiga qaado kaygan isa beeshan haddaan nahay aad iyo aad baan uga xunnahay aad ayaanu uga xunnahay beelahaasi waxa ay ku dhaqmayaan waxaanu ka xishoonaynay annagu ka reer ahaan ka cugaal ahaan waxaanu annagu lahay una ka yar waaba ina yaro shaqaalaha dawladda soo diratay xagga TV-ga loo soo fadhiisanayo cidii ay soo diranayso cid u adeegsanayso caytan in la caayo TV laga caayo loo mariyo cidda ka dambaysa waanu la soconnaa cidda iyadu waqti reernimo ku socotay ka dambaysa waanu la soconnaa annaguna kani waxa weeye waa nin reere weeyaan maanta waa nin reernimo ku garab taagannahay waa Jacfar Awlerari shabakada wararka ee Gabiley News Network degmada Arabsiyo ee gobolka Gabiley